magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa laga hirgeliyay dhisme sariibad cusub taasi oo ay ku ganacsan doonaan ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan xaafadda Maxamed Cali ee magaalada Burco. Sariibadani oo ay dhistay shirkadda Sakeeko ayaa dhismaheeda laga hirgeliyay xaafadda Saylada ee magaalada Burco. Maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo wehelinayay xogayaha fulinta ee dawladda hoose ee Burco ayaa si rasmi ah xariga uga jaray sariibadani cusub. ugu horan xafladii xariga jarka ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda dhistay sariibadani iyo xubno ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Burco. annagoo shirkadii dhistay suuqa Saylada oo ka mid ahaa mashaariicii GBLG-da shaqadii oo aan dhamaynay waxaan ku wareejinaynaa maamulka dawladda hoose ee degmada Burco. suuqana suuqii labaad ee Maxamed Cali wuxuu ka kooban yahay suuqana qaybtii hilibka, qaybtii khudaarta, qaybtii caanaha, qaybtii kabatolaha oo kabayo waxaas lagu talay, qaybtii tumaalada iyo meheradii kala duwanaa day dukaana noqotay haday bacadlayaal iyo dawaarlayaal iyo waxa ay noqotay insha Allah taala xarika jarka 9 bisha 7 2018 aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mashruuci dhameystirmo. maayirka magaalada Burco iyo sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose ayaa iyana geestooda uga mahadnaqay shirkadda dhistay dhismahani cusub iyaga oo sidoo kalena ku booriyay dadweynaha xaafadani inay si talmoon uga faa'iideystaan sariibadani loo dhisay. alxamdulillah waxtar weyn maanta soo kordhay weeye magaalada Burco waa magaalo madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. insha Allah taala anagana waxa naga go'an inaanu wax qabadka degmada Burco si laabno si insha Allah taala madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku ballan qaaday xilligii ololaha uu ku jiray inaanu anaguna insha Allah taala wax qabadkayaga maalinta ka dambayso si laabno. waxa kale oo halkan laga heli doonaa suuqa shaqaalayn badan. suuqan waxaan isleenahay ha ka faa'iideysteen dadka ku nool xaafadda Maxamed Cali siiba qaybta Saylada iyo agaarkeeda. waxaan ugu talagalay dadka bacadka wax ku iibsanay inay halkan harka soo galaano halkan wax ku iibsadaan. waxaanu la socodsiinaynaa meesha nadaafadda in la ilaaliyo. annaguna waa la ilaalin doonaa, shaqaale ilaaliya iman doona, waa la shaqayn doonaa. aad iyo aad baa dhamaantiinba u mahadsantihiin. suuqii kasta ee furma wuxuu inoo soo kordhinaya muxuu ahaayay shaqo abuur buu inoo soo kordhinayaa, bilic buu soo kordhinayaa. ogolaanna mayno qof dambe markaan halkan imika samaynay bacadkan wax ku iibiya la ogolaan maayo. waa inay gudaha soo galaan halkan wax ku iibiyaan. suuqani qaybo badan buu ka kooban yahay. qaybta imikaanu joogno oo ah tii caanaha iyo khudradda, qaybta inaga horeysa oo ah maartay tii hilibka, halkii tumaalaha dadka birta tumaa ay fadhiisan lahaayeen, kabatolayaashu meeshay fadhiisan lahaayeen, dawladadii iyo suuliyadii oo intaa dheer. waxaa kale oo ay leeyihiin bakhaaro ilaa 15 bakhaar meelahaas banmaynay 16 ku meersan ayay leedahay. waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shirkadda Sakeeko oo qorshahan qandaraaskeedii aanu siinay oo si fiican u dhameystirtay. ugu dambeyn maayir Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa xariga ka jaray sariibadani cusub oo ka mid ah mashaariicdii waxqabad ee 2016 ee dawladda hoose ee Burco. waa fahmi kaysa xirsi Bulsha TV Burco.